waxaa soconaya dhismaha dib loogu dayactirayo xarunta murtida iyo madadaalada tiyaatarka qaranka oo ka mid ah meelaha danta guud ee dalka waana wajigii lixaad ee barnaamijka isxilqaan ee sida baaxadda leh ugu qayb qaadanayaan ciidamada xoogga dalka oo ka qayb qaatay dhismaha xarunta murtida iyo madadaalada tiyaatarka qaranka sareeyo guuto aadan kaalmooy dhaqane oo ah taliyaha amniga ciidanka xoogga dalka ee deegaanka xamar ayaa ka warbixiyay shaqo soo gelista ciidamada waxa uu sheegay in ciidamadu ay guteen waajibkii saarnaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sido in ay wadaan oo ay ka shaqeeyaan oo wadanka dhisaan oo meel walba wax ka qabtaan ayaa loo baahan yahay ayagoo shaqadoodii wato ayaa loo baahan yahay annagoo ma garanaysaa ay furan ku jirno ayaa maantana waxaan ka shaqaynaynaa inaan qaranka Soomaaliyeed isxilqaan aan ka qayb qaadanno oo na arkaysaan wanaagga iyo sharafta aan ugu qayb qaadan hayno ilaahay mahadii weeye dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u soo jeesatay in wadankeeda ay difaacaan in wadankeeda ay dhisaan dambeyn ayaa agaasimaha maamulka maaliyadda wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Ciise Cali waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka ay sii wadi doonaan ka shaqeynta dhismaha goobaha danta guud ee qaranka maanta waxay noo ahayd kaltankii lixaad laakiin wasaaradda gaashaandhigga ciidanka xoogga dalka 7 jeer ay soo galeen hal ayaan dheerayn wasaaradaha kaleeto waxaan dayactir lagu sameeyay 3 meelood madxafka iyo tiyaatarka waxaan rajaynayaa meelaha dhiman in la sameeyo markaan bilaawayna meeshan waxay ahayd meel qashin qubka lagu daadiyo laakiin waad aragtay hadda in mutuleel la dhigay waa isku day fiican aan bilownay oo la sii wadi doono waana ku najaxnay oo ku guulaysanay insha Allah waxaan rajaynaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan magaalo kasta ay joogaan in sidaan oo kale u dayactiran u sameeyaan xarumihii dawladda Aamin Xaaji Xuseen Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho